assalaamu calaykum. Marar badan ayaa maskaxdeennu si khalad ah u fasirtaa waxyaalaha aan indhaha ku aragno. Tusaale ahaan, saddexdan gaari kee ayaa weyn? Waxaa dhici karta inaad u malaysid in gaariga ugu sokeeya uu ka yaryahay kan dhexda ku jira, isna uu ka sii yaryahay kan shishe. Laakiin xaqiiqdu sidaas maaha oo waa isku mid oo ma kala weyna. Haddii aad beentay u malaysay, cabbir oo xataa mastarad soo qaado, waxaad ogaanaysaa inay isla eg yihiin oo midna midka kale uusan ka weynayn. Waxaad sidaasoo kale la mid ah labadan xariiq oo aad moodaysid inay kala wen yihiin laakiin isku dherarka ah. Haddaad cabbirtid iyagana waxaad hubsanaysaa inay isku mid yihiin. Haddaba waa maxay sababta aan ugu arkayno inay kala duwan yihiin? Horta, indhuhu markay wax arkaan waxay u gudbiyaan maskaxda si ay u fasirto. Maskaxdeennu waxay og tahay in shaygu marka uu kuu soo dhow yahay uu weyn yahay, marka uu kaa fog yahayna uu muuqaalkiisu yaraado. Haddaba labadaasi xariiq iyo gawaaridaas, maskaxdu waxa ay u arkaysaa in midkood noo soo dhow yahay, kuwa kalena ay xoogaa ka fog yihiin. Laakiin marka ay ishu u soo gudbiso maskaxda in labadaasi shay ay isla eg yihiin, iyagoo midkood noo soo dhow yahay midka kalena naga fog yahay, waxa ay maskaxdu dhahaysaa labadan shay waa isla eg yihiin, laakiin midkood ayaa ii soo dhow, midka kalena waa iga fog yahay. Taa macnaheedu waxa weeye in kan iga fog uu ka weyn yahay kan ii soo dhow, maadaama sida caadiga ah shaygu marka uu iga fogaado uu yaraanayay. Laakiin haddaysan yaraan, macnaheedu waxa weeye inuu ka weyn yahay kan ii soo dhow. Arrintan oo kale waxay dhacdaa markii dadku u maleeyaan in dayaxu ama qorraxdu marka ay soo baxayaan ay ka weyn yihiin marka ay bartamaha joogaan. Dadka u fiirsaday baa garanaya dayaxu markuu 15 yahay oo uu wada iftiimayo, marka uu soo baxo waxa uu u eg yahay inuu ka weyn yahay marka uu bartamaha cirka joogo. Sababtoo ah waa sida arrintii hore oo aan ka soo hadlay, oo marka dayaxu bartamaha joogo waxaan u malaynaa inuu noo soo dhow yahay, marka uu bariga ka soo baxayana waxaan u malaynaa inuu naga fog yahay. Haddaba marka ishu maskaxda u gudbiso inay isla ekaayeen labada mar, maskaxdu waxa ay u fasiranaysaa in marka dayaxu naga fogaa oo uu bariga ka soo baxayay uu ka weyn yahay marka bartamaha cirka uu joogo, maadaama ay ahayd in shaygu hadduu naga fogaado uu yaraado. Haddii uusan yaraan, macnaheedu waxa weeye waa uu ka weyn yahay kan noo soo dhow. Waxaa kaloo fiirisaa labadan goobo, kee ayaa isleedahay waa uu weyn yahay? Dadka badankood waxay u maleeyaan in kan goobooyinka yaryar ay ku hareeraysan yihiin uu weyn yahay, laakiin labaduba waa isla eg yihiin. Arrintan ayaa loo sameeyay in maskaxdu ay shayga ku miisaanto waxyaalaha ku hareeraysan. Waa waxa loo yidhi, haddaad gaaban tahay oo rabtid in laguu arko qof dheer, waxaad raacdaa qofkaa gaaban. Intaas ayaan ku soo koobayaa faqraddeennii maanta. Intii aan mar dambe kulmi doono, nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.